allaha u naxariistay waxaa xalay bartamaha magaalada Hargeysa lagu toogtay Najma Cabdullaahi xilli ay ku socdaalaysay bartamaha magaaladaas oo xarun u ah Soomaaliland. Najmo oo wadatay gaari nooca raaxada ah ayaa iyadoo maraysa agagaarka maxkamadaha waxa rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland kaasoo isku dayay inuu baxsado balse waxa gacanta ku dhigay ciidamo ka agdhow halkaasi. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in meydka Najmo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu aaso magaaladaasi. marxuumadda ayaa ahayd gabar dhalinyaro ah kana tirsaneed shaqaalaha wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliland. dilka ayaa waxaa sidoo kale si weyn uga carooday dadweynaha ku dhaqan Hargeysa waxaana ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ku eedeeyeen inaysan tixgelin xuquuqda aadanaha. dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ka soo baxay saraakiisha ammaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka ku aadan dhacdadaasi. si kastaba dhacdadan ma ahan mid ugub u ah Soomaaliland waxaana dhowr jeer magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi ka dhacay dilal ay geysteen askar ka tirsan booliska Soomaaliland kuwaasoo qaarkood la xiray kuwa kalena lagu riday xukun adag. hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus. guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.